بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada waxa dhibaan qabshax sade fiidnimo wanaagsan aweysan wanaagsan dhamaantiin maalad joogtiin waxaan rabaa inaan maaragtay barnaamij yar meeshaan uga faa'iideysto aniga barnaamijyada maaragtay waayahan inta badan waa iska soo gaagaabshay markaan arko wax badan oo qasanaan waxaan jeclahay traffic Facebook aan ahay inaan maaragtay dadka kala dhaxsho waxaan rabaa inaan horta meeshaan uga jawaabo maaragtay dad baraha bulshada qabiilka iyo siyaasadda isku qalday khaasatan nin la yiraahdo nadiifo maalmahan waa saayid wuxuu keenay qabiil caay maaragtay jufooyin caay dad gaar ah oo raba caay iyo qola amaan arrimahaas oo dhammaan waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ka daba geeyo dhamaantiin waa mahadsantiin barnaamijka sheergareeya anu mar walba xaqiiqda ku qotoma hadalkaygu ama ha ku dhibo ama iyuu ku dhimin aniga shaqadayda maahan intii muwaadin Soomaaliyeed oo wax gashaan rabaa inay sheergareyso fikir wanaagsan ayaan rabaa inaan ka dhiibto bariyahan waxa baraha bulshada qabsaday arrinkii Sheekh Shariif khudbadiisii waxaan rabaa marka inaan fikirka anigu aan ka aaminsanahay khudbada Sheekh Shariifna aan ka hadlo dadka Sheekh Shariif qaab qabiil u caayayna aan ka hadlo oo aan waliba si adag uga hadlo siiba maaragtay nadiifo iyo wiilasha dhadhal oo la soo deeyay oo qaabka maaragtay qabiil u abaabulan oo wax macnaheedu aan la fiirsan kara aan ahayn oo aad u foolxun in dawladan taageereen inta la yiraahdo dad qabiiladooda iyo nasabkooda iyo gadaal loo galo oo la caayo oo maaragtay sawirro foolxun iyo maaragtay waxyaabaas laga soo dhigaa waxyaabaas waxaan leenahay marna ma aqbali karno dadka Soomaaliyeed waa dad siman waa walaalo ninka siyaasiga cid rabtaa dee siyaasiga rabtana waa amaani kartaa siyaasiga rabtana waa caay kartaa laakiin waxyaaba aan ka hortaagana waxay tahay in qabiil la caayo oo la yiraahdo heer hebel dawlad ma rabaan heer hebel 91 u xiiseen sawirro foolxun macnaheedu qabiil ama xayawaano loo soo galsho qoryo la yiraahdo heer hebel macnaheedu waa waxaas ma aqbalayna leenahay aad ayaan arrinka u cambaaraynayaa waxaan rabaa inaan marka hore intaanan barnaamijka iyo nadiifo iyo wiilasha dhadhal oo Facebook lagu soo deeyo shilmaanta loo qaybsho inta aanan ka hadlin waan sugay in loo jawaabo oo dad u jawaabo la helo laakiin ilaa hadda wax jawaaban la aha soo marka waxaan rabaa inaan nimankaas adag ugu jawaabo laakiin Shariif ayaan ku hormaraya Shariif maaragtay anigu waxaan ku jiraa dadkii dhaliilay markuu Kenya tagay horena waa u taageersanaa waa muwaadin Soomaaliyeed waa nin dalkan ka gaaray maqaamkii ugu sareeyay maaragtay soo maamulay madaxweyne soo ahaa soo shaqeeyay maanta inuu maaragtay hanjabaad iyo dhaar iyo maaragtay waxbaan dilayo waxbaan qaxiya maaragtay in uu yiraahdaa kuma taageersani waana wax aad u foolxun ha yeeshee ninka raga qalad waa ka dhacaa dawladuna ninka la yiraahdo Shariif waxaad u malaysaa inay cadaadiska ka badisay oo ay hoos ka juqaynayso Shariifna oo maaragtay markii hoos laga juqeeyo sida ilmo yar oo dugsileeya oo inta cunugu qofka hoos ka qaniino oo boodbooda uu Shariif boodboodayo waxaad u malaysaa nimankan inay maaragtay ay aad hoos uga qaniinayaan waxaan leeyahay oo aan dadka Soomaaliyeed xusuusinayaa Shariif waa ninkii keenay madaxweyne Farmaajo hadduu fiican yahay hadduu xun yahay asigaa keenay asigaa ra'iisul wasaare ka dhigay asigaa dadka Soomaaliyeed baray asigaa proposal kadib magacaabay oo ku qancay inuu Farmaajo dadka siyaasadda Soomaaliya lug ku yeesho oo uu ka shaqeeyo oo ra'iisul wasaare ka dhigay marka saas markay tahay markii uu ra'iisul wasaare ka tagay oo madaxweynaha naqaynayna Shariif 46 cod oo lahay ayuu ku soo baxay Farmaajo Xasan Sheikh maanta uu la joogo isagoo taagan ayuu codkiisa siiyay isoo wiri Farmaajo soo baxo oo horta Shariif qabyaaladeysta taasa loo gudba wiilka dhalo maanta Farmaajo madaxweyne arko oo dhacdayaw waxaan idin leeyahay horta Shariif nin qabyaaladeed maahan qabiilna shaqo kuma leh ana idin dhaha qabiil oo kacaayo iyo wax oo kacaayo ma jirto Shariif waa nin xisbi shalatoole asaa keena Farmaajo markii hadduu qabiil iyo adeer yaqaan Xasan Sheikh ugu shubi lahaa oo horta saas uu qabyaalad uga madax banaan yahay ninka la yiraahdo Sheekh Shariif waa bini aadmi qalad baa ka dhici kara waxa aan munaasabkiisa inuu dhigi kara ana dhaliili kara adaa dhaliili kara laakiin wallahi oo billahi tallah uma adkaysa karno dadka qaab qabiil ama qaab hawiyanimo ama qaab jufanimo kursiga markii ayagoo nin amaanaya inay macnaheedu shakhsiyad kale iyo qabiilkooda isku la gafaan maya ma aqbaleen waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha ogeedeen meel xun bay tagi doontaa aad baa la isu dhaami doonaa maaragtay wuxuu yiri boolobow yaa ka lafgaabsan oo la afjaxuunsalaha bal adigu duqbilow bal gadaal isu raadiyo CV-gaada iyo maaragtay meesha aad ka soo jeedo oo cawaba cid hooyata ka soo raadi Sheekh Shariif qabiil lagu caaya male maaragtay waa nin dhameystiran shakhsiyan qalad waa geli kariya waa siyaasi waxba ka xumaa kara waxba ka qaldami kara ma ogolin in macnaheedu dadka Soomaaliyeed la iska hor keeno qaab qabiil
dowladda aad taageerayna ma taageeraysiin dad badan ayaa baraha bulshada nala isticmaala oo aan arko aan qoraaladooda fiiriyo oo aan la socdaa waxay taageeraan qabiil haddii farmaajo madaxweynihii dalka ugu sarreeye yahay shariif maaragtay madaxweynihii ugu sarreeye noqdo waa ninkii keenay ninkii dadkan bara waaye hadduu xun yahay iyo hadduusan yahana ninka layidhaha waa nin soo shaqeeyey laakiin waxaan codsanayaa oo aan luqad adag ku hadlaya inaadan shariif iyo qabiilka uu ka dhashay iyo dadka uu ka soo jeedo aadan u gudbi karinin adinkoo shariif kasii dhiganaya marmarsimo midda kale dalkan waxa la isku hayaa waa siyaasad qaala allahu tacaala maaha dadka shariif ka dhashay oo nimanka weliba jufada gaarka oo agoonyarka ayaa meydiida fadhiya oo shariif diidaya oo le shariif waxuu sheega kuma raacsin sow marka yuu adigu inaad qaab qabiil annaga nooga dhigto oo aad dad ku ijaafayso oo aad meel soo fadhiisato oo aad maaragta dhac ku tira oo aad shariif afbuyu tira oo aad kan tira adiga iska dhaafe sagaalka awow shariif ma gaaraan xaqiiq wa ma caay kartid waxa weeye mana aflagaadii kartid mana ogolaanayno waana u sheegaynaa qolooyinka dowladdana ilmaha dhedhella oo aan saaxiibo aqliga ahayn oo walahaan taageernaale walaalayaalow raaligelinka baxsha oo aad dadka kelig ku dhahdeen kelig baad ku dhahdeen waa la ismucaaradaa waa la ismuxaafadaa rag waa isjijiidaa waxaa la isku hayaa waa siyaasadda qabiil male dadka soomaaliya siyaasadda qabiilay ka yaqaanin anuu ciddaan rabo oo aan ciddaan rabaan taageera anu haddaan rabo farmaajaan taageera haddaan rabo waa ka hor imaanaya maskaxdaydan ku shaqeeya fikirkii markaas ila saxanna waa taageeraya fikirkii ila qaldanna waa diidaya muwaadinimadu sidaa wey laakiin in inta qof meel soo fadhiisato ay macnihi dad iyo qabiilkood iyo isirkood ay cayso oo ay tiraa maaragta 91 asaan ahayd heer hebelaa dhulkan biliqda waxaad fiiqdaana dhisna laba taalo dhiloo meel wuris waxaas waa qalad farmaajo haddii oo wax qabanayo wuxuu u qabtay qaranka Soomaaliyeed taariikhda sheegi doonta shariif hadduu wax soo qabtana taariikhda sheegi doonta waxa uu sheegana taariikhda xusi doonta dadka kala maaragtay Soomaaliyeedana kala saari doona laakiin in sheekh shariif qaab qabiil loo caayo oo wiilkan dhiloo maaragtay iskula xira maaragtay baabuurka tareelka iskula xira qamriga dhille oo markuu ka boodo dadka ku mataga shilmaanta lagu siiya waxaan leeyahay waxaas ansax ma ahan hal laga daayo maaragtay dadka Soomaaliyeed kala geynteeda iyo qaabka qabiil la kicinayo waxa weeye waa bulsho kicin waa dad iska horkeenid dadka Soomaaliyeed dawlad bay u baahan yihiin madax bay u baahan yihiin cid rabta ha maamushe siyaasadda rag baa isku haya laakiin shacabku wax dhib u kama dhaxayaan dadka qaabka shacabka baraha bulshada u kicinaya oo heer hebelow oo sawirada foosho xun soo dhigaya oo dadka nasabcaaye annagu waxa weeye nin walba nasab uu leeyahay nin walba nasab uu leeyahay nin nasabkiisa loo gudbi karaa ma jiro aniga ninka igu qanciyaho inuu inta shariif caayo farmaajo amaano oo maaragtay uu yiraahdo muwaadinaan ahay anu ma arko madaxweyne dalkan soo maamulay in la caayo maaha laakiin la dhaliilo way qaladka u galay in la sheego way banaanka in la keeno sax way waxa uu sheegaa sax ma ah waa qalad laakiin haddana in la caayo oo nasabkiisa la caayo oo jiritaankiisa la caayo waxa weeye wiil dhiloo hid soo yiri adeer uga cali waxaan leenahay maaragtay waxaad ka soo hadashaa kuwa qaran dumiska oo jidadka fadha oo carabta lacagta uga soo qaada oo xisbiga shariifka ka dhib badan oo dani calol weyne iyo kuwaas ka hadla dalkaan micnihii qolo walba qolo qosay shariif dadkiisa heesta ayaga ku dhagan madaxda xisbiyada oo kala ku dhagan Soomaalida kala ku dhagan ayaga canaan ugu filan annaga daba taagan annaga la xisaabtamayn adigu adeerka Axmed Madoob iyo waxaad ka soo dhamaataa oo analf iyo qolooyinka aad faanaysa qolooyinkaas aad wiil dhilo qaab qabiilmahan looga soo turo shilmaan la siiyay ma rabno dad dhilo maaragtay qaxootiga laga soo jafo madaxtooye lagu dhaxayo lagu beelo warkoodna dadkaan ma amoodin waxaan raali gelin buuxda ka siinayaa dhammaanba dadka hawiye oo maaragtay magaalada Muqdisho dega iyo aagaas waxa weeye ilma dhilo banaahu ma matalaan dadka qaar waxaasna loo joojimaa dadka Soomaaliyeedna way siqaanin kibir iyo baraq iyo maaragtay habar fadhiisa weysay oo maaragtay meelaha boobooda oo dadka qabiil ku xisana salkeed waa hoog waana la yaqaan dadka Soomaaliyeed way siqaanin waxaan rabaa marka in la yiraahdo dawladdu waa dawladdeeni mucaaradkuna maaragtay waa siyaasiyiinteeni Soomaaliyeed maangaabka iyo caruurtuna waxa u maleeyaa waxa la isu sheego waxaad arkaysaa biri farmaajo qayr rasuul socda waxaan waa siyaasad qaal Allah taala ma aha ha ku dhuminina siyaasadda inaad adu qabiil wax ku difaaci karto adoo Facebook ku jira ha u malayn laakiin qofka aad taageersantaa fikirkaad ku muujin kartaa inaad wax ayso ama aad aflagaadiso ama aad xasan sheekh aflagaadiso ama aad shariif aflagaadiso ama dad nasabkooda aad u gaftaaho abbay kugu taa shay in yaan ku leeyahay wiilka la yiraahdo maaragtay dhuqbilow maaragtay dadkii Muqdisho oo aad tiri no more hawiye oo aad toranta tagtay haddana aad irid walba guri walba leeyeen aad dhaxrogtay way dadka aad caayay ma ogolin qaab qabiil inaad qofna u cayso mana ijaafi karto qof ka la fagaaban Soomaali waa istaqaana oo ka doqonsan oo maaragtay ka jaajuusan oo ka shishay u shaqaysan ma jirto taariikhdaada iyo khalfiyaadkaada gadaal soo fiiri shariif iyo meesha uu dadka uu ka soo jeedaa waa dadka dawladnimada Soomaaliya ku taagan tahay waa dhaqaalaha Soomaaliya halka laga maamulo waa dadka sabarkooda lagu nool yahay dalkan iyo dadkaana way soo yihiin laakiin waxaan yeelayn ninkii dawlad duminaya ama nidaam dawladeed duminaya in shakhsiyan la isaga dhaxsho laakiin in la qabiileeyo oo la yiraahdo heer hebel waay hawiye dawlad ma rabo 91
hawiyey rabaan kanay rabaan hawiye ma aha nin soomaalida aad u jeedaa saddex haddii loo dhigo laba ka yahay ma aha marka nin ma ahan saddex ma ahan afar waxa weeye qof hadduu qaldamo magaca la yidhaha hawiye qabiila iskale dadaa iskale wadaadaa iskale culumaa iskale caamiya iskale dhallinyaraa iskale brofesoraa iskale annaga waxaan leenahay maaragtay dadka aan maskaxda u dhalan oo maaragtay ilmaha iyo naagaha iyo dadka xanuunsan shirarka lama keeno guryahan uga soo tagna waxaan codsanayaa beesha uu ka dhashay eeda nadiif ay ka dhalatay aqlina uma dhalan dadka xaafadaha looga soo tegi jira waaye bulsho Soomaaliyeed inuu wax u sheego oo soo hor fadhiisto oo uu ka hadlana suurtagal ma because of nin qaran Soomaaliyeed ka hadlaya oo la qaran Soomaaliyeed ka inuu qabiil caayo sax ma inaan qabiil ilaahay ballaarshay cid walba ku jirta ee dawladnimada Soomaaliya salwa ee shishac waa saldhigo inuu caayo inta meel soo fadhiisto waxaas dawladnimada laguma taageero dadnimada laguma taageero shakhsiyadna laguma yeesho ninka ragaahu nin maaragtay waa commentiye kara aniga ay jeedin shariif waa commentiyeya waana commentiyaha shalana waa amaanay maanta hadduu qaldamo waa qabaha waa maaragtay siyaasi anigu matala biri hadduu madax noqdan hadduu ra'yigiisu ila fiicnaadaan taageera hadduu ila fiicnaa waayeen diida laakiin aqliga saxda ah waxuusan ahayn in baraha bulshada dadka qabiil inta isu abaabushisan aad dad gaar ah ku caysiin aad dadka xoolo u malaysin inaan leedin ogeyn aad leedin waa heer habal waxa heer habal leeyahay ma jiraan dadka aad uga faysiin waa dad sumcad taariikh iyo sumcad iyo dadnimo leh wiya la yiraahdaa afar la saacad caysiin baraha bulshada way kula jirnaa waxa weeye farmaajana runta marka isu sheegno hawiya dhalay xaqiiq waa farmaajo aad amaanaysiin oo maanta dadku caysiin Soomaalidu waxay tiraabiya dhul lagu arag lagana dhowr farmaajo hawiya asaga dhalay abgaalka aad caysiin dhalay asigaa ku kala tagay 210 cod ay heleen nimanka aad shariifka aad leedahay waa nin 210 cod wareega koobaad ku helo eed nadiifo indhaha fa kala si shariifka aad caayo abgaalka dhalo wallahi oo billahi oo tallaahi inaan daaroodna keenin shiiqaalna keenin dirna keenin qof kalena keenin hawiye kalena keenin abgaala dhalay ana runta ku sheegay soo marka inaad inta meel fadhiisato aad tiraahda soo caab maahan soo inaadan waxa aad sheegi ma ay kartid qabiil waxa la yiraahdo wiyo meeshaan yaala male meeshaan dawladda ka jirta hadaa taageersan tahay nin dawlad taageersan oo sharaf leh oo respect leh oo meel fadha oo dawladda taageera noqo laakiin inaad soo fadhiisato aad waran qoryo soo dhiibto ee aad tiraahdo abgaal ismaano hal kaco waxaas waa daro meel abgaal ka kacana qof joogay male waa dad saldhiga dawladda ah waa dad dawladnimada ku nool arrinka ninka garaadlaawaha oo caaqa ka hadlay waa nin aan aqoonin jiritaanka dadkan iyo ma ay ka soo jeedaan iyo waxa ay yihiin ma aqoonin waa iyo dawladda intay u jiraan dad hadla ma aha dad maaragtay war yaqaan ma aha dad maaragtay baraq iyo fawdo yaqaan ma aha shariifna waa shakhsi abgaal ismaan shakhsi uu kaya waa nin waa shakhsi ma matalo kuma hadlayo af abgaal siyaasadiisa iyo maslaxadiisa iyo meesha uu jeedo iyo mowqifkiisa iyo ra'yigiisa ku hadla soo marka adigu soo fadhiisatay qabiil dhan oo hawiye indhoodii oo qabiilka ugu tunka weyn ah oo laga galo irid laga galo laga baxaa inaad af laga hadayso haddaad u malayso in dadku aan anagu raali ku naqayno oo aan rabno sheekadaas ma yeelayno ogaada dadka Soomaaliyeed aab xun baa ka dhici doonta in bulshada Soomaaliyeed ay baraha bulshada isku cayso oo qabiil la socaayo oo aan wax aanan sharafkeena iyo sumcadeena aanan u quurin waa ka digayna arrinkaas dadka barnaamijkaas ku faraxsan oo sheer gareeya oo dadka indhaha ka galshow ogaada Britole waxay keento idin kirigin yaa la iska horkeenin bulshada Soomaaliyeed magaalada maaragta allada Muqdisho tara iyo Muqdisho lama yeeli kariyo dadka joogana 99.9 dadka degan waa dadkan aad caysin dadka ku dhaxnool maaragtay sharafay ku dhaxnoolin waa isognahay dadka Soomaaliyeed kismaayo maaragtay laguma dhaxnoolaado waa la dilaa habeenkii 9 saac qorta laga soo gooyaa qofta war qaldanaysa ragga rabin tiraahda dadkaanu magaaladan 100% ay degan yihiin qofna ma dhibaateeyaan qofna ma dilaan waa dadka kaliya oo diris leh diif la yaal ogaada gabdhaha dhalay wiilasha dhalo baro farmaajo dadkii dhalay waa shariif asaa dhalay inta foosho dhalay shalana asaa keenay maantana asaa inta foosho dhalay siyaasadda waa ku kala tagi karaan waa kala xumaa karaan waa la iska hor ma kara laakiin no qabiil absolutely no qabiil nin hawiye ka hadli kara ee magaca hawiye baraha bulshada keeni kara ee qaab u caay kara ma jiro anaa ka taagan anaa ka jooga ma la caay karo abgaal la caay karin habar gidri aadan caay karin ee maaragtay qabiil shaqaaladan caay karin xawaalaadan caay karin mursadadan caay dad nasaba oo jira oo culummo leh oo dadnimo leh waa ma yeelin anagu inta soo fadhiisano daaradka ma cayn that's it su'aashaydu waa intaas waxaan leeyahay marka maangaabka iyo dadka xanuunsan iyo dadka maskaxiyada annagu haddaan nahay beesha hawiye guryahan uga soo tagnaa laakiin adunku heer daaroodow duqmaliyuun ka soo bilow oo maaragtay blue make up ka soo bilow oo duqbilow ku xiji oo maaragtay waxa balaayo dhan baad nagu soo deysaan dadka annagu waa xirannaa wixii naga waasho waa xirannaa waa daawaysanaa waa quraan saarnaa dhaqan aan leen
qofka aan bulsho hadalkeeda loogu talagelin waa ka xirnaa bulshada ma keeno laakiin caabta adinka aan leedin waxay tahay dad aan saaxiib aqli ahayn oon awood garaad ahayn oon abkood hadli jirin oo aan aqoonin bulshada Soomaaliyeed si loola hadlo oo Soomaali waxay isu taan ogeyn oon dawladnimo aqoon ayaad noo keenteen bari bulshada nagu xaaraya umadu waa iskumentiyeysa umadu maaragtay waa la sriixa just barahan bulshada waxa loo joogaa waxay tahay commenti maaragtay isriix maaragtay wallahi serious waaye iyo maaragtay just fana loo jooga laakiin nimanka heer adoogay waxay u maleeyaan in akayaal la sito oo waa galay runa ay heer daarood ay baraha bulshada u joogaan adeerow yaalow gacali annagu waa idin baryaynaa maaragtay qaniiskiina iyo shaydaankiina iyo ninkii idinka waasha iyo maaragtay dabacasayr iyo duqbilow iyo blue make up iyo maaragtay ninka la yiraahdo kuwaas waa kuwa shariib yiri stop baan idin leenahay kuwaas sheekh shariif stop buu stop baan idin naga joojiyo walaalayaal yaa naan isnicin yaa naan isdilin xamar waxa waaye dadaa degan boqolkiiba 90 ayaga shisha dawladnimadu shisha asliin canshuurtooda isla cunaa dhiigoodan aan iskula cashayna wiilasha u dhiig baxaa wiila hal jufa askari karo meel kale kama yimaado boosaas anu inta keeka daabo maxuu sheegay halkaas la garaacaya adinka dhexdiina isku gumaysatiin asad warsangeliyo qolo helbe qolo lafiis dushin annaga meesha Soomaali jireec iyo jarweyna ku nooshahay waa magaalada Muqdisho adunku inta tagaa sidii ciirta ka tagtay iska joogtiin oo canshuurtan iska cunto adinka hoteelada jiif waxa leedin ma yeelo inaad reeyalo joojiya warka eeda nadiifo yow dadka kala geyn yow san dhalinyarada kicinin waxaan leeyahay dhalinyarada aan afkeeda ku hadlaaho joojiya waxaas yaynaan dadka Soomaaliyeed idin horkeen deganaasha idin anfaca dawladnimo idin anfaca dad nimaad u dhalateen waxa weeye waxaad u dhalatana nina ka ma qaadi karo waxaan rabaa inaan u sheego wiilashii dhadhan lahaayoo maaragtay dadka qabiilka isugu diri jiray oo baraha bulshada facfacay jiray oo shilmaanta ku facaha oo hawiye aawen tuqbilow nin runtuu sheega oo yiraahdo waryaa naga fadhiisa ma ka waayeen mise shilmaad yar oo qaateen ila aaminsan yihiin oo la siiyo ila afar cuna xishooy anigu waxa waaye bulshada Soomaaliyeed aan af u ahay wax dulmiya arki ma karo qof in la dulmiyo ma ogoli in la caayo abgaal in la caayo habargidir in la caayo xawaale oo wiil dhalo dabaqoodhiyo ogaadeen oo caayo oo afar ilaa saac madaxdooda iyo shacabkooda oo inta meelaha soo fadhiista caayo ee aan ira dawladda taageersan yahay iga dhaaf anigu ninka ku qancay ma waxaan ogolaa dadka Soomaaliyeed inay sanaadaan waxaan ogolahay wiilkaas hadduu iska dhicinayo ama farmaajo taageerayo ama qolo gaar taageerayo ama qolo oo daba joogo heeska taageero heeska daba joogo mi fahmi farmaajo hadduu meel tagaa weydin kaasa walaalayaal laakiin annaga nasabkeena iyo maqaamkeena iyo jiritaankeena in la caayo abkiinan macaan adoogina macaan haddana ogolaamayn runta idin sheega wallahi runta idin sheega ma ogolin hawiye daarood inaan caayo mar rabo hawiye inaan caayo mar rabo cadaaladda jirta in laga hadlaa raba shariif waa shakhsi xasan sheekh waa shakhsi haddaad ku ra'yi taageer haddaad rabto keligiis kommentaari laakiin inaad ku soo darto abgaal ismaan inaad ku soo darto habargidir inaad ku soo darto mursada inaad ku soo darto qolo in baraha bulshada aad wax kale nooga dhigtiin oo dadka Soomaaliyeed keligiis kula tiraayin oo bulshadu isnacda sax ma walaalayaal waxaan idin sheegaynaa siyaasaddu qaal Allah tacaala maaha rag baa isku haya haddaad xoog leedin imaada shalay waa la keenay farmaajo shalay waa la keenay shariif ninkaad keento waa bixi kartaa farmaajo aan bixiha inaad ka xanaaqdiin ma farmaajo macni in xabad lagu baxaa ma in af Soomaali lagu baxaa ma 210 cod ayaa beesha abgaalash xaqiiq waa macni waxana ma wallahi xan ma wax Soomaali og yahay farmaajo og yahay 210 cod wareega koobaad qabiil heli kara intaad ku maqasheen ii sheeg bal qabiil ka heli kara 210 cod oo saxiix oo joora oo aan laga helin عدو على جيس حسن شيخ شريف iyo ninka la yiraahdo bahalkii casable wallahi oo billahi 212 iyo 2 coday wareega koobaad heleen migaamini joogtay madaxweynuhu ahaa karaan intay ka dhintaan boqortooy ka dhiga karaan wala coday halida dadka noocaas marka inaad qabiil u cayso oo aad inta meel soo fadhiisato adoo xumo indha ku riixan aad afar laad saacaysa kaama yeelin adeer jirkiis laaya jariida kama qoslo dawlad weligeed yaan la helin nasabkeeda dawlad dadka nasabkooda lagu caaya dawlad dadka gadaal loola soo galaa lafaha dadka lagu caaya dawladnimo hadii la helo in jufa leeda loo maleeyo waxaas dawlad ma dawladnimadu waxa la rabaa in dadka Soomaaliyeed ka dhaxayso naga wada dhaxayso dadku ay isdhaliilaan qofka qaldan la isla wada qabto laakiin hadaad u maleysiin inaad dawladda dadka ka xigtiin oo aad adinku jufaan u leedin walaalayaal qaatay tuulooyinkiina geesta walaalayaal dhagaxa kor geesteen nagala wareega والله سيريوس واي حقيقة كهلا لما قبش حسوا تقانين واحد هذا وكهلا دولة نماذج مركي قشوا إسر كي الوقعاي دولة نماذج ممكن قشوا إن نصب كتذكر الوقعاي دولة نماذج ممكن قشوا إن الجلال لا يصير نقد وحيابها وسوس كانوا عليه واي والشعب كي دولة كلا فوقية وحلا يا شعب كصوماليات ضد كان نوع عاص وهلا عن قف قبيل العرق اللي يدكوا شرق ريها قنيسيد وقريان تغوشة حيرنون ناقة برا وقريان ضد كوالون رش كان على يدكوا سودية جيرها اللي يدكوا صفرا ممكن عندك اللي يدناركوا وحاسو نامتان كهم أقولين لنا
ما أقولنا أنا قدرت أن كرش أنا ما كسياسيين أنا أن كرش أو أن كسوجود أو هو ينك أو رأي دليلنا حتى أنا ودليله هدول ودليله متول بون عن رأيي مركز عن أرك إن الصوماليين ما كجرين أما عن دانو كجرين ودليله وأنا دبتاجنا لكن وحنا مرنا أقبلين وأنا مرنا لا يقول سياسة ذكر وأنا مرنا يعني أنت هكذا يجي كرين ويل إلا أو ما ركت دبقود يحمو إن الريحان أو عافمد هانو حنوسن مقو كوب بياسو عبا إنه عذر هويلي راسو شتو أو قلب مرعاي أو ضدو عشورتو عنو دقان كود عبو ديقود عبو اسكا آمسانو لا إلهي ما سوام عليها ست بعض أنت أدنك مدحين يان لوكا لتقن إن لا كعشو أو شعب كلا كعشو ولا يا ما حد دارتيس هست شعبك مقالة مقدشة دقن شعب كاس كونفور دقن قبل هذا حد دقن وشعب نظيف وشعب دول النمط أبسل وشعب لا يقانو حديك عن جوابته وحن إلى علينا برسم كعلينا والله شعب جوابته اللي قوي هدودي هرب لو بحايا جوابته اللي يقانا مرة بنو دقال ويل با كود انت ويل كمر دشو هران ودالني صد سنه فدني سومالنا ما ربنا دولدني ما ربنا in nidaamka la jira loo dhawaada rabna walaalayaal gacali annagu ma ogolaahayno farmaajo biyo dhul lagu arag lagana dhowr farmaajo shariif asaa shalana keenay doraadna soo saaro xasan sheekh oo maanta la jiro in adeerkiisa uu heeliyo qabiilna mahaas uga banay allahumma inni bari min wax aan ogolnahay oo noo qabiila oo noogula siyaasaday karo iyo arrinaa sugan hoos garigtiin male shariifa hadlay kana weligiina daabka noo seetin adeer uga caliya dalkan ma uu ka buko dana calul weyn waa kan qabiilka la taagan oo jufa u kala saara asiga ka hadla oo dhooba daarad wixii lagu sameeyay ka hadla anigu waa ka hadla cadaalad waa ilaahay hortiiga taa ilaahay ka cabsado kaas ka hadla waxaynu haddaan dulduleel ku jirin ya haddaan waxayna qabiilka dhex jirin ya dadii waxmo ya ma joogtiin haygeynina nagana cishada qaniisyada iyo dadkaas iyo naga cishada anu kuma qabno qaniis idinka kiin calisha malihin hawiye qaniis ma leh hal qaniiso idinku blue make up iyo qolooyinkan kala ku deynama ninkayga baan insha Allah ayagoo ooyay ma hadana ma xishoodaan hal qaniiso idinku dirna ma qabno wana naga daay ilmaada reer waydan barayna qaniis ma qabno islaamna waa la too milyan oo kala ma qabno duqbilow oo kala qofku inta badarkeeda soo cunay soo guriga shaah ka cabaa ku caayaa qabyaaladu inta tirta ma qabno wana ruuga cali naga daay dadaan idinku jimayna ma qabno anagu dadkeena culimo iyo wadaad iyo nin siyaasi waa qabna hod dagaalama laakiin culimo iyo siyaasi iyo aan u badannahay iyo dad uu muxtarama iyo dad xishooda in Allah inta aad qabtiin oo kala ma qabno wadaad si dabca sayr ee ku tubaxoor ma qabno oo siiga ka sheekaya oo dhakhle ma milyan inta soo fadhiista iska faydahay ma qabno qaniis weyn oo inta soo fadhiista dabada faraysaha ma qabno war waxaan ma qabno dadkaan ma haysan ma gaar ilbaxnimadiin intaas aad nooga horreysiin naga tahay marka madaxda iyo sharafka iyo dadka maarata lafaha iyo sinjiga naga cayn walaalayaal dowladnimada naga dhaxayso Soomaalinimada naga dhaxayso adeerayaal bahasha waxa weeye waaba saasoodan u fururayna la yiri aniga iyaan layga hadashin oda qabshacsadaan ahay oda weyn baan ahay wixii la arkaa ma rabo inaan dadka Soomaaliyeed kala geeyo in afkayga lagu kala tago ma hubo dadka anigu aan ka dhashay ee hawiye feero weyna la yiraahdo haday roogsadaan waa hooha ay dhan abgaalku hooha way haday roogsadaan eber way waa lagu kala socaa naga daaya waxaad juqayhaysiin ogaada maaragtay nin iska hurda hatunka garaacaysin naga daaya yaan qaab qabiil loo hadlin dawladdu waa naga dhaxaysaa Soomaali baa iskale ee nadiifo arrinkeeda haddaadan baraha bulshada aad raali gelin ka bixin tii dhacda dhinahay dadkan hawiye ana afayaan ah ana matala ana adogoodiya abyada ana cudurkoodiya labada wiilka weyna hadla waajib dastuuri ugu taa inaan hadlaa markii wiil dhalo aniga facayo oo maaragtay oo baraha bulshada oo keeno inuu nasabkayga sinjigayga iyo dad isri ahaan u caayo ma aqbali karo dawladna lama lihi dawladnimadu nagama dhaxayso sharaftu nagama dhaxayso Soomaalinimada lagama dhaxayso kuwa dhacay oo aan soco karin oo dalkan gata oo laga soco waayay oo qabyaalad duhurka u sacabtuma oo maaragtay foolxumaad haysatiin waana aamusanahay markaas aan islaana hadii Soomaaliya soo maahe dalku dawladdu u leeyahay u kaadsha adeer uga caliya dadka aad guriyahooda ku shinadooda dhaafeensiin joojiye walaalayaal ogaada war dadka Soomaaliya ula ogaada war digniin wallahi waa kama dambayso wallahi thumma wallahi saddex bariyan aamusnaan baraha bulshada fiiray waxaan idin sheegaa nin dad nasab ay kara ma jiro ninka siyaasi rabow mis maqalna hadaa dawlad taageer ninka siyaasi rabow siyaasigaas ku ekaw nin qabiilka wiil la yiraahdo ama laf kamida hatta jufa kamida wax ka sheegi kara ma jiro ninkii u dhashay oo wax kala dhaca oo ayaga cadaalad u sameeyaa yes feel common laakiin naga joojiya harba in Allah la odayaasha 9 jirada oo dhaqan aan nahala ayaga naftooda wiya kamida oo habru ku qaraabtaan waxaan idin leenahay walaalayaal lug damba lug hore haday dhaafto waajibta meeshan adduunku waxa weeye sumcad iyo haybad iyo jiritaan loo noolyahay hawiye waxa la yiraahdo diin ma waa qabiil waa dhalasho Soomaaliya markaad joogto qabiil bad ku joogta kuntsulu qabiil baan wax iskula darsanay qabiil baan ku joognaa qabiil maaragtay waxa fiican waxaada xun ma jirto dawlad waa la soo haajiray barahan bulshada nusaan ma haajirin barahan bulshada rag dad baa isku xoojinaya runta aan soo sheegno walaalayaal yaanaan isku xoojin
soomaalinimo daacada dowladnimo daacada nidaam naga wada dhaxeeyo amni naga wada dhaxeeyo dad maraayad dadku iska wada dhaxarkaana ka rabnaa dowladda ma rabno dowlad qolan leedahay hadda idin sheegina dowlad dadka madaxda lagu caaya dowlad qaniisiya soo kici karta ma rabno anagu dowlad qaniisiyada soo fadhiisaan qaab qabiil ma rabno dowlad habraha waash soo fadhiisaan qaab qabiil ma rabno dowlad ilmaha qamriga caban noo soo fadhiisaan ma rabno dowladan anaga maya ha ku dirina shacabka iyo dowladda iska horkeenina siyaasiyiintu waa isriixriixi karaan qaal allahu tacaala maaha waxaa kaloo idin sheegaa maaragtay ku dheedheelka madaxda dalka sida qayree farmaajo waxaan uga digaa hala daayo caburuska badan walaalayaal hala daayo caburuska badan hala daayo xaqiiq anuu muwaadinaan ahay dowladnimadaan rabaa soomaalinimadaan rabaa wada noolaashadaan rabaa deganaashada iyo nabadda xamaraan rabaa dadkayga 30 sano dhiig baxay inaysan dhiig bixin baan rabaa keligooday dhiig baxaan keligooda la qarxiyaa keligooda canshuurtooda la cunaa keligooda la laayaa siyaasiga qaylshaa xataa ayagu ma hadlo ma ogolin ayagaan ka fikiraa waa la dilaa bajaajleyda la dilaa duruufay ku shaqaystaan isbitaalay waayeen jiday waayeen jug dambuu ma rabno jug uma rabno walaalayaal maamula siyaasiyiinta aad shuqayhaysiin oo aad dabada ka farahaysiin oo aad tilaabtay qaadaan aad caburaysiin ka joojiya dadka caburuska dherga markuu aad u kulaado oo daboolka lagu dhajiyo waa buriyaa ka daaya dherga buruska walaalayaal ka daaya dalkan dowladnimaana deeqda facebookan dhilla iyo ilmahan dhilla waxay sheegaan dal lagu maamuli karo dalkan qabaad leedihiin waa socotiin waxbaad qabateen waadna qaban doontiin walaalayaal ka daaya idin leeyahay waa iga dignin siyaasiyiinta mucaaradkaana waxaan leeyahay dalkan shalana waa maamusheen berrina waa maamulaysiin hoggaankiisana 90% maaragtay 210 cod ninkii 300 ka helay hadda waa iskaga jeedaa oo berrina waa helaa haddii ushaadu kaa dhunto berriyaa jidka ka heliya wax dhiba male sabra raggan waxa weeye dadka iyo shacabaa la xukumaa dhul lama xukumo geeda lama xukumo shacabbaad xukumaysiin shacabka aad kor degantihiin waa shacabkiinni ayaga u tura nimankaan haddaysan dowladnimadii inay shacabka iyo dowladda isu adeegsadaan xataa hadday tagto waxaan idinka codsanayaa inaadan shacabka aad hoos degantihiin waxaad maamulaysiin waa shacabka waxa la canshuuraha waa shacabka waxa loo dhimrinaya waa shacabka waxaad wax ku tihiin waa shacabka waxa berri idin difaaca waa shacabka inaad shacabka u dhimrisiin oo aadnaadan dagaal samaynina oo aadnaadan karakeytiya samaynina oo aan dowladnimo loo wada dhan yahay nidaamaad ku wareejisin aad nidaam ku sugtiin markii la waayo ayay ka dambaysaa markii la waayo nidaamkaad wax ku wareejiseen shacabka Soomaaliya marqaati idinkaga yaa markii la waayo kadib nimayahu qaylsha wixii ka horeeyo ma yaanaan dadka bulshada leedin horkeen anigu waa taladii ugu dambaysa waxa la rabaa waxa leedin fayda oo leedin juqaya in bulshada Soomaaliyeed adinka la iska kiin horkeeno ogaada barbal hadalkaas cawdiga qora shariif yaas sheeqan qaasta la hadla waxa la rabaa waxay tahay in adinka iyo bulshada la iska kiin horkeeno oo leeyahay muujidin ma qaab qabiil oo hadlaya muujidana nimanka hoosa leedin ka juqayna waa burnis ha burunana mayo xisaabtama deganaan ku xisaabtama dalkaanad u dhalateen dowladdaanad soo ahaadeen 8 sano isku xigtaad soo joogteen faataxa kuma soo joogin 4.5 ka lagu joogad ku soo joogteen 4.5 kaad ku soo joogteen ninna ka bari maysin kursigan waxa way shalaad fuushay waa ka daba fuushay bariyaad fuulaysiin waa ka sii daba fuulaysiin waana joogaysiin inta yaroo nimankaan joogaan ilma adeer rayaalow hal la joojiyo yaanaan been isu sheegin heer bara bulsho ku nool yaanaan lagu dayan dadkaan aad u qabto inaysan weligood dowlad naqan weligood madax naqan weligood ma yaanaan lagu dayanin waxaan leeyahay dadkaan isku daaqadaanahay shacabku waa isku daaqad dadka Soomaaliyeed waa isku mid waxa tamir lafa ku jirta waxba ku jira ayaanta shariif warkiisa waxba ku jira waxaan rabaa marka inaad dhammaantiin aad maaragtay aad arrinkaas aad maaragtay dhammaantiin dadka Soomaaliyeed aad arrinkaas u wada kacdin barnaamijkaana share gareysiin una sheegtiin ee nadiifo inaan annagu ka horeyno kana intelligence-nahay kana afdheernahay kana ognahay Soomaalidana ka dhaqanka siyaasadda ugu horeyno laakiin aanan waxa uu isu quuraan isu quurin ninkii farmaajo keenay wuxuu ahay shariif maantana xasan sheekh asoo u diidaa wuxuu siiyay 46 cod ku soo baxay balagow hadda ninkaad u caayay waa ninkaas because of qabiilan marka u caayay ilaa shariif asaa qabiilad diido qabiilad shaqo ku miliyuur runta waa sufiican qabiilad shar uu diiday marka hadduu qalad ka dhacay waa bini'aadmi qalad baa ka dhacay qaladkiisa comment garayna haddaan anigu shariif xataa mucaarad rabo ka baxa haddaan adigu xataa shariif dadka kale kula mucaarad xataa kaaga baxeen waxaan leeyahay marka because of dadka Soomaaliya iska horkeenaysiin in free speech loo hadlo oo qofka Soomaaliyeed muwaadiniinimo u hadlo dhan diidantiin because saasayna tagi dowladnimada dhan dadka nacsiisa annaga dhan naga horkeenaysiin xaqiiqo waxaad naga horkeenaysiin qabiilkii aad nagu celinaysaan adinka qabiilkii nagu celinay because of qabiilad u bururaysaan waa nagu celinaysaan waana ku naqanayna haddaadan naga daynin wallahi billahi tallahi qabiilkii baad nagu celinaysaan ma rabno qabiil inaan ka gudubnaa rabnaa in Soomaalidu dimuqraadiya isku doortaan rabnaa in dadkaan nin qofka ay rabaan oo hogaanshaan rabnaa laakiin ha nagu celina qabiilka waa nagu celinaysaan haddaad madaxda dadkaan ka soo jeedo madaxdooda aad qabiil u caysiin adunkuna kuwiina oo maaragtay aan rib baar bisil kala goy kara aad noo amaantiin oo aanan caafimaadkooda taam aanan ogeyn
عبي دحليسا واسكو حمانينا ددكو قبيلكودي dabada la galayaan qabiilkuna bareejo ku dhamaanaya nin walba buushiisa dhagax u aada ninka dhaqaale haysta asiga dhuuqay wixii kaligiisa cuna naga daaya marka walaalayaal naga daaya bifadlikum naga daaya ma rabno aanu horo soconno aan wada jir ahaano cid kasta ee qabiilkan baraha bulshada la fadhidana dadka Soomaalidu arka dawladuna raali ku tahay farmaajo waxa ku raali naqalin duqbilow ilmaha dhilo madaxda iyo dadkii isirkooda san jooda caay anu intaasaan leh waa gaara barnaamijkii farmaajo live way fiirsada waa ila socdaa waa ogtahay madaxweyne ha ku raali naqanin in dad iyo nasabkooda la caayo adu madaxweyne ahaato dadka nasabkooda la caayo ee aad fiirsateed qosasho maarta aad shaaribada rifato ha ku raali naqanin yay kula fiicnaanin sunbay soo wada wallahi billahi talla sunbay soo wada ninka inta qabiil soo caaya cawada mushaarku soo doontay aad lacag ku siisaa wajigi ilaahay waa ninka kursi ka tuura oo saddex similay ninka jarta ka tuura wakaas ha ku raali noqonin annagu hadaad dalkan hogaamiye hadaad soo naqay hadaad sii joogay anigu siyaasi ma kursi u tartayma aday u tilday adiga iyo hankaadi waxa bulshada Soomaaliyeed ka timaad leedahay kaaga hiilimaayeen raggii shala kursiga ku saaray ee meesha sare ku geeyay ee ilmaadeertood kaaga hiiliyay ee ku yiri maaragtay magaalada Muqdisho adaa iska leh waxa uu yiri heer habla u badan ma jiraan ka tali farmaajo ku yiri ee usha ku dhiiba in maanta ilma dhalo soo caayaan ee aad shaaribada ku rifatad ku qososhaa iska jir halis bay keeni kartaa dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay barnaamijka dhamaantiin shaargareeya meel allaale meel uu joogo inaan runta isu sheegnaa naafic inaan qabiil orna naaficma inaan qolo gaar u helnaa naaficma aniga xal dhaban qabsha sida leeyahay qof walba ee muwaadin Soomaaliyeed maalin buu uga doora wixii runtaan ka hadla runtaasana naafic doonta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bulshada Soomaaliyeed sharafta jecel deganaan ayaan idin muujinayaa ee nadiifoy aniga way taqaanaa xoogaadu waa ogtaa inta leegi islaamaad xoog raadis dadnimadaadana waa ogta dadkaana waa ogta dadkaanu mar waxa laga hadlayaa laakiin laba may hadda ka horaad tiri no more hawi dadka Soomaaliyeed oo ku arkaa media meel bay ku jirta magaalada Muqdisho tagtay waa lagu soo dhaweeyay dawac sumaysan baa tahay naga leex walaal gaali dadkaan isirkooda iyo nasabkooda haay baraha bulshada habiya maalin ku jir waxaad rabta sheeg cidda rabta I don't care siyaasiga rabta ay laakiin sanjiga iyo jinsiyadda ma ay kartaan sidaasan ku sheegaa توشين يا وحي وارن يا قنيسيد يا قفل بوت سودي ستين ولا ريال ونقع عشت تواس أقنع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحل ما قبش حسوا اللي هنكينو ما ركت هذا فيرهبل يا نان مدحوينو هذو مدحوينه قبيل نقضوا رئيس الوزراء هذو رئيس الوزراء قبيل نقضوا قفل بعض قف قبيل نقضوا والسير كذا والسير قبيل نقضوا قف ما مني قفل بعض قبيل كذي هذه ساسي نقي يا الله قاعد نيجي ساسان أرقناه ساسان برا بلشة كوا أرقناه نقل الدايو قف بعد تاجيري كرتا وتاجيري كرتا قف بعد جعلها كرتا فكرة هاد كهالي كرتا شخص بعد لكن أنا سوف نستي سنج عايز أنا سوف نستي نصب دت كيس عايز أنا سوف نستي أدخل واحد قلبته مية ما أقولين ما أنا أقول عضانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتي برنامج كان شارجري دتك صومالي أنا وأسوق يمد مالي جوجان نرى من ربع شريف يا حسن شيخ والله مش شخصي واسحنا كرام وقدامي كرام دل كان مقامك وسرية كجارين أظن كنا مجيننا قبيل كينو مجي قلادين مجين أيها تجي كرتدو يعرف كودي رجل مدودي كنت جاي واسوام معمولين وحي سواق بتاعي وحي سن سواق بمبا عاديك يو ده اللي هو قاقلي وش المنطقة عتا لقى ما بعنا معي سواق بتاعي معي سواق هذا كل حساب تيميس جست واحد كارت تكون بتجري كرت لكن القبيل كودي نسب كودي سنج كودي فرعوا ده قالوا قشاو تتكلم تابعه ما ورحمة دون تعرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.